maxay tahay sababta loo dedejiyey doorashada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya muuqaalkan waxaynu ku eegaynaa xogo iyo macluumaad dhaxalgal ah oo ku saabsan sirta iyo sababta ka dambaysa ee soo dhawaada saaxiibayaal waxa wada jir muuqaalkan idinku soo baahil doona anigoo askariye maxamuud cali iyo sidoo kale maxamed xuseen maxamed hagaag waxa lala tacajabay ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo shalay taasi oo dadka qaar ay ku tilmaameen taariikh cusub ama wada cusub oo ugub ah ama ugub ku ah siyaasadda koonfur galbeed iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya wax ka yar 5 saacadood ayay ku dhacday diyaarinta xildhibaanada gudoomiyaha iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa iyo xitaa doorashadii madaxweynaha maamulkaasi taasi oo dadka Soomaaliyeed ay u arkeen in marka ay tahay mid isku caanashub ah haddaba maxamed arintan marka ay eeglo maxaan markaa ka baranay maxayse tahay ayaa isleedahay sababta markaa ka dambeysay arintan waa maasanta horta marka ugu horeysa aan ogaan horta koonfur galbeed iyo xaalkeeda koonfur galbeed waa maamul goboleedyada Soomaaliya ka jiro koonfur galbeed tusaale ahaan waxay horta Cabdicasiis qaabku ku yimid doorashadiisa hore waxay ahayd doorasho sidaan oo kale ah waxya un ka duwan oo waxa lagu keenay qori caaladiisa iyadoo dawladii waaga oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda ka ah madaxweynaha ka ah sidii ku dhistay waa ka warqabtaa waxa Baydhabo maalinta ku dhintay doorashada Cabdicasiis iyo marka la diyaarina dhowr ku dhawaad 100 qofood sidee dadka sheegaan marka hadda wax la yaabo ma aha ninkan asalkiisa sidoo ku yimid haddana 7 sano jooga marka waxyaabaha oo hadda shalay uu sameeyay ma ahayn wax aad looga la yaabana ma aha wax oo la filawaay ahana ma aha wax la sugaayay inay dhacaan ayay ahayd hagaag maxamedow waxyaabaha la yaab kale oo dadka marka aad u la yaabeen waxa kamid ah in maxaa la yiraahdaa 5 saacadood gudahood marka xildhibaanadii marka lagu soo diyaariyay doorashadii marka gudoomiye ku-xigeenadiisa iyo xitaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ku soo baxay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareel sida marka maamulku uu sheegay taasi oo marka dadka la yaabeen xitaa marka maamul goboleedyada kale doorasho sidaan oo kale ah oo boob ay sameeyaan sida maamulka Jubbaland oo kale waxa la arki jiray in marka xogaha wax oo habraac la maro maalmo la iska daba jiitamo laakiin midal doorashooyin kale waxa ugu dawlad in xogaha waqtiga la boobsiiyay dadka marka arintan falaaqayeen waxay sheegeen sababta ugu weyn in marka ay ahayd in maamulka koonfur galbeed ka faa'iideysato waqtiga kooban marka oo ay haysato ka hor inta uusan ku bilaaban dagaal dhinaca dawladda ah sida marka ay qabaan falaaqayaal dhinaca siyaasadda ah arintaas maxamed maxaase maaragtay sheeg ay kula tahay waxyaabaha loo dedejiyay doorashada zikri waa mahadsantaa horta waxa ka horeysa doorashada horta guddiga say ahaayeen dhammaan xubnaha guddiga waxay ahaayeen Cabdicasiis dadkii u shaqeynayay staafkiisa dadka wardiya waxa ay xogeyntiisa bilaawgii ku horta waxa ka qaldanaa horta guddi u dhan yihiin ma ahayn dadka ka soo jeeda koonfur galbeed sidoo kale doorashadaas dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka waxgaradka heer koonfur galbeed wax la tartamay Cabdicasiis ma jirin wax dhanna asaa magac xitaa salaadiin feeg ayuu sameeyay waxa ugu maqaala ah oo warbaahintan marka daawa sida live-ka loo daawanayay xubnaha baarlamaanka la sheegay in oo Cabdicasiis ay guddigii oo asaga sameystay ay soo xuleen dhammaan mayna dhameen qaar kamid ah waxay joogeen magaalada Muqdisho bedelkeedu waxa lagu buuxiyay askar si ay u doortaan marka waxay la tahay Cabdicasiis wuxuu sameeyay ma ahayn midaan xitaa waxay ahaaleed ka orod doorasho ma ahayn waxay Cabdicasiis hal mar madaxweynaha lagu yiraa ma ahayn inuu ka ordo dagaalka dawladda ay ku soo qaadayso ma ahayn wuxuu hal mar inuu xalaaleysto inuu madaxweyne oo noqdo waxyaabaha kaliya la yaab kale zikri waxa kamid ah waxa jirta madax dawladda xilal hore u soo qabtay wasiir ah iyo madaxweynayaal ahaayeen u hambaliyay marka adi maxay ka la tahay madax hambaliyada aan waxa wala yaabana doorashadaas ma wala yaabanayo 5 saac gudood ku dhacday hadda waxay maray xayisiinta in loo isticmaalo wax ka yar doorashada Cabdicasiis ayaan ku lacagaha adeega kugu sarifeen hadda xayisiinta dadka ayay saasi ku sameeyaan marka adi waxa aad waxyaabaha la yaabo dadka hadda midowga mucaaradka Soomaaliyeed ama qolada samata bixinta isku magacooday iyaga way hambaliyeen marka midaas waxyaabaha la yaab kale dadka ay la yaabanayeen maahna mid Cabdicasiis waxa nin caano isku shuubay lama yaabane dadkan kale la yaabanyahay وهاجاج التا بدل حبلها معارض كالدولة أي سب وحدة مركها أتاجري اسكو على شبكي عبد العزيز حسن محمد لفت جريل هل كمركها يكسر جستيل دولة الفدرال كيحبلها مركها معارض كلام عبحي بدبادة كفر قلبات سوماليا طبعا
xubnaha mucaaradka markaa sida ay u taageereen ama markaa taageerada ay u muujiyeen isku caalishubkan waxay dadka markaa falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay markaa ku sheegeen ama ay markaa la meeldhigeen in markaa ay tahay ama ay ka dhigan tahaba cadowgiisa markaa caalami ayaa la siistaa. waa maasanta siyaasadda macnaheeda saas ma ahan maanta wuxuu Cabdicasiis sameeyay u hambaliyeen haddii maanta madaxweyne Xasan oo villa Soomaaliya wardhigley ku taalo asaga isku caanashubo waxay noqonaysaa dadka kale in iyaga u hambaliyaan saa darteed waxyaabaha kaliya oo Cabdizikri oo ilo waxa kamid ah Cabdicasiis khudbadii wixii dham doorashada markaas khudbo ayuu qabtay wuxuu sheegay in dastuurka la ansixiyay wax dhamishiisyadii in bistoolad madaxa loogu hayo hadaladaas waxay Cabdicasiis markuu hadlay waxa ka muuqday qofka dadka cilmi nafsiga bartay khudbadiisa qalqal badan ka muuqday xitaa aragiis markuu muuqaal ahaantiisa wax cabsi badan qalqal hadaladiisa qalqal badan ku jiray marka waxyaabaha kale oo lamid waxay madaxweyne hana dilin lacagta waa ku siinayna malaha hadalkaasna iyada dadka indhergaradka waxay u fasirteen inuu lacag qaatay Cabdicasiis lacag darteed hana dilin waxyaabaha kaliya oo la yaab kale waxay bistoolada leeyahay hay inta waxay madaxweyne Cabdicasiis 3 sano wuxuu ku joogay afgarad siyaasadeed iyadoo mucaaradka heer koonfur galbeed siyaasiyiintii dadkii deegaankaas sida Barsoor Jawaar ala u naxariisto deegaankiis in lagu aas loo diiday xildhibaanada kale oo xildhibaan maxaa la dhahay shaqada madoobe loo diiday madaxana furan wasiirka Allah loo diiday Xasan Eelay gurigiis la weeraray wasiir Fargeeto ka warqabto inuu gurigiisa maalin cadii la bilaqeystay marka khudbada oo dhahay madaxa qori loo asaga dadka wuxuu ku sameeyaa beedhawo jooga asaga dadka wax caburintii oo asaga caburinay maanta asaga si dadban u sheega lama oran karo Zikri waa hagaag Maxamed waa mahadsan tahay dhinaca kale haddii la eeglo ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka koonfur galbeed oo shalay markaa ka soo tagay magaalada Buur-Hakabo ayaa lagu soo warmay markaa ay kaabiga ku hayaan magaalada Baydhabo waxaa sidoo kale jirta Maxamedow maanta dagaal qaraar uu ciidamadan huwalta ah markaa uu ku qabsaday deegaanka Deenunay halkaas oo ay kula dagaalameen ciidamo markaa ka tirsan sida la sheegay al-shabaab arintaas Maxamed maxaan kala socdaa waa maasan tahay dagaalka horta shalay dagaal dhacay intii ciidamada wadada ku soo jireen meel mooda la hayo u dhaxayso magaalada Baydhabo iyo Buur-Hakabo dagaal xuna ka dhacay marka ciidamadan oo commandoska Soomaaliya gorgor ciidamada xaq u dirarka badbaadada koonfur galbeed ciidamada isku magacaabay dagaalada qabsaday xitaa meeshaas qoladii nabadjiidka ahay waxa loo geystay jabbaan iyadoo diyaaradaha droniska ciidamadan galbinayeen inta badan ciidankan waxa la socday diyaarad dronis ah oo aad u galbinaya supportina sameynaya diyaaradaha waxa la sheegay in dawladda Soomaaliya leedahay diyaaradihii hore loogu diiqay inay yihiin marka dagaalkan waxay horta dawladda waxay tallaabo weyn ay qaaday laba talaabo muhiim ah qoladii nabadjiidka way ka adkaatay wixii isku furtay Buur-Hakabo iyo Baydhabo oo ahayd muddo dhowr sano go'doon ah dadkuna ay mari karin haddana waxay go'doonkii way ka baxday labada magaalo wala isku tagi karaa sidoo kale Zikri waxa xusud madan Cabdicasiis dhammaan maamuladii degmooyinka iyo goboladii gacantiisa ay ka baxeen waxa u dambeeyay degmada Bardaale waxa shalay arkiis media inay ka hadlayeen indhergaradkooda iyo dadkii deegaanka iyo askartii inay isku dawladda federaalka ee taageereen siyaasiyiintii iyo waxgaradkii koonfur galbeed ee taageereen oo xaq u dirarka ah marka Cabdicasiis wuxuu ku soo haray hal degmo xitaa degmo ma dhigi karnaa caawada wuxuu joogaa xaafad kamid ah magaalada Baydhabo wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan ciidamada huwalta ah saacadaha soo socda marka ay gaari doonaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida markaa qorshuhu yahay waxaa la horkacaya xubno ka tirsan mucaaradka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee markaa la magac baxay badbaadada koonfur galbeed iyo sidoo kale saraakiisha militariga Soomaaliya oo ka tirsan ama ugu badan ama markaa ah kuwa markaa ugu badan kuwa markaa ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo markaa diidan isku caalishubka lafta gareel iyo sida markaa maamulkiisu ay u arkaan leeyahay boob doorasho iyo mid markaa aan heshiis lagu ahayn taliyeelta muuqaal ka lamid ah ku kulmi doono waxa la kaga tagay sida iyo nabad gelyo